Howlgalkan lagu xirayo xuduudka gobolka Hiiraan oo la wadaago ismaamulka Soomaalida ayaa maanta ka bilowday deegaano dhaca dhanka xuduudka. Waxaa howlgalkan hogaaminaya gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabelle Mudane Cali Jayte Cismaan. Ciidamada qaybahooda kala duwan ee qalabka sida NISA, ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka booliska ayaana howlgalka maanta qayb ka ahaa. Gudoomiyaha gobolka Cali Jayte Cismaan oo ciidamada howlgalka fulinaya kula hadlay feerfeer ayaa ugu baaqay inay u istaagaan badbaadinta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Hiiraan maadaama Itoobiya dhowr kiis oo cudurka coronavirus ah laga helay. Gudoomiyaha ayaa amar ku bixiyay in ciidamada haddii ay qabtaan qaad laga keenay Itoobiya ay gubaan isla markaana dadka qaadka sita iyo ganacsatada iibinaya intaba ay xabsiga u taxaabaan sharcigana ay horgeeyaan. Waxaana dhanka kale gudoomiye Jayte ku dhawaaqay in guud ahaan dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee gobolka Hiiraan iyo Itoobiya la joojiyay. Bismillahirrahmanirrahiim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Annagoo fulinayna amarka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle iyo kan federaalka gudanayna mas'uuliyadda naga saaran. ballanqaadkii aan hore u sii samaynay oo 72 saacadood gudahood in arinta aan ku soo afjaraynana ka dhawaynayna waxaan xalay 10 saac u istaagnay howlgal ciidan oo lagu sugayo ama lagu xirayo xuduudda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan iyo kilinka shanaad u dhaxaysa. arintaas waxaan ku baxnay wadooyin kala duwan oo aan hadda aanan rabin inaan ka sheego meediyaha ay ciidamadu ku kala howlgaleen. waxaan amar ku bixinay dhammaan xuduuddu inay xiran tahay. haddii qaad la arko la gubaya, haddii gaadiid wax sida la arkana waa la celinaya. cid kasta oo amaamiirtaas ku xadgudubtana waxay la kulmaysaa wax jawaab ku habboon ayay la kulmi doontaa. waxaa ka mid ah waxaa la yidhaahda qaadka oo muddooyinkan badde si waran ugu soo batay gobolka Hiiraan. waana la gubayaa haddii la qabto. qofka wado amaamiirtu u hoggaansami waayana xabsi buu ku gelayaa, sharciga ayaa la horgeynaya. amarkaas waa qabaan ciidamada oo howlgallada ku jira, waana la dhammaystiri doonaa haddii alla idmo. waxa aan ka duulaynaana ma aha wax aan ku riyoonnay ama maxaan ku iraadaa khiyaali lagu waa amar dawladeed waxaan fulinaynaa. damiirkeenu saasuu tusaya haddii alla idmo. Taliyaha laanta socdaalka ee jinsiyadaha Hirshabelle Mudane Ibrahim Xuseen Sheelare, taliyaha saldhigga booliska Beledweyne ahna kusimaha taliyaha qaybta booliska gobolka Laba Xidigle Muuse Salaad Weheliye, taliyaha NISA ee Beledweyne Laba Xidigle Ibrahim Maxamed Abuukar ayaa ballan qaaday in ay fulin doonaan amarka madaxda qaranka. bulshada ayayna ugu baaqeen dhankooda inay ciidanka amniga ay kala shaqeeyaan howlgalkan cusub ee dhanka xuduudka ka bilowday. Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo shalay amar ku siiyay gudoomiyaasha gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe inay joojiyaan qaadka ka yimaada Itoobiya lana xiro xuduudka ayna dhamaatay docda kale waqtigii gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan ee 72 saac aheyd ee uu qabtay ganacsatada qaadka iyo waliba inay xiri doonaan xuduudka. Maxamed Ibrahim Siyaad, Kalson TV, Beledweyne.